بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii saddexaad 2022 waxaan rabnaa inaan ka hadalno barnaamij waxaan duubi doonaa insha Allah abaaraha deegaanka Soomaalida iyo Soomaalidaba iyo hadday soo gal noqoto maamulka deegaanka iyo waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay idmo doorashooyinka Soomaaliya saddex xasan insha Allah taala ku soo ururnaynaa haddaan ku horeeyo deegaanka iyo abaarta ka jirta deegaanka waxaa ka jirta abaar aan soo marin muddo dheer abaar maqalaan ugu ah oo la dhaho abaartii daba dheer anaguna soo gaarin laakiin aan filayo abaarta ugu xumeyd ee deegaanka soo martay inay tahay dadkeenu waxay u baahan yihiin garab istaag iyo in dadka dhammaantood iyo gobolladaba si cadaalad iyo sinaana loo garab istaago si ay u kala daran yihiin loo kala hormariyo dadka Soomaalida ee qurbo joogta ee deegaanka soo jeeda waxaan leeyahay horta qof walba maanta oo kale waa maalinkii la isgarab istaagi lahaa shacbiga deegaanka shacbigu shacab burbursan oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa maskax ahaan u burbursan buu ahaa haddana saa ay tahay maaragtay waxaa la sii kala dhex dhigay colaado deegaan ku salaysan qabiil ku salaysan gumaysiga ka dambeeyo marka waxaan codsan lahayn in ay dadka Soomaalida ah ee deegaanka soo jeeda dadkooda inay garab istaagaan si ay u kala daran yihiin wax loogu kala hormariyo maamulka deegaanka waxaan dhihi lahaa abaartu waa markay u dareedo iyo hadda bishii waxaa lagu jiraa habar adhi hadda wixii ka dambeeya roobab baa laga yaabaa inay bilowdo laakiin maamulka deegaanka lacago badan baa soo gashay sida aanu arkaynay dadkuna aad bay u cabanayaan hadda dunyadii way ka dhammaatay dadkii baa hadda dhimanayaan dadkii gobollada ha kala daraadaan oo maaragtay ha u kala daraadaan roobabkii hore iyo cawsaska ha u kala dambeeyaan qayb baa biyaba haysan iyo baadba marka waxaan dhihi lahaa maamulka deegaanku xilahaas ka saara abaarta iyana noqon abaarihii hore ee la dhahayay igu sawiriyo sidii mujrimkii ka horreeyey hadda kan madaxweyne Mustafa mid xun baa ka horreeyey marka sidii kaa xunka ah ka horreeyey igu sawirta u samayn jiray soo samaynin waxaa leeyahay dadka loo cadaalad sameeyo abaartana lacagaha iyo deeqaha loo ama adduunka ugu deeqay ama dowladda Itoobiya dhexe ama dadweynuhu ay ugu deeqeen ama dowladda deegaanka ugu deeqay inay say u kala daran yihiin ay u gaadho si sax dhammaan gobollada way cabanayaan meelaha dadka hadda uu dhibanayaa gobolka Erar kale aad baa yaa looga soo caracarahayaa intaasaasana codsanayna insha Allah tacaala dhan kale maamulka deegaanka waa maamulkii ugu chanska badnaa ee soo mara maamuladii hore ee lasoo magacaabay waxaan soo maray madaxweyneyaal fara badan oo lasoo magacaabay madaxweyne Mustafa waa ninkii ugu chanska badnaa dadkii oo intuu dagaal galay daalan oo nabad u baahan oo dhammaantii wixii dambi ahaa ee dhex mara ay dheheen ururada dagaalamahayeen ay yimaadeen gudaha yimaadeen dadkuna ay soo xiiseen nin walba ninka kale dhibka intuu ka batay uu leeyahay ilaah mar yaa xabada joojiya iyo la kulmay dhabarka lagu ritay 3 sano oo buunbuun ah halkii sano hore horta marqaan baa asaga yaa waxba loo ogeyno dee lama arag weligeed madaxweyne iyo deegaan ka soo jeeda iyo deegaankii oo wax xabadaba ka soconin dadkii xabsiyaday laga sii daayay isbedelkii deegaanka ka dhacay ama dowladda Itoobiya barigan geeska dhan ka dhacay inaga si gaar ah isbedel gaar ah sababtoo tahay dhammaan inaga wax ka daran ba inay haystay ummadaha kale wax haystay sida Oromiyo kale Itoobiyada kale iyo inagu waan ka dareen isbedel guud oo wadanka dhacay laakiin inaga isbedel kale inoo ahayd waxaan rabnay inaan ka faa'iideysano wixii shalay tagay aan ku maartay oo macallin inoo noqdo wax ka barano wixii tagayna aan waxba laga soo qaaday ururka ONLF oo kale wuu ku mahadsan yahay ay tiimkii markay tageen waxay dhaheen wax alla wixii dhiba anagu ama geysteen anaga naloo geystay cafis buu naga yahay gudoomiyaha anaa ka dhageystay carabkiisa
meel badanna goobjoog baan ka ahayn. waan soo dhaweynaynaa dadku inuu iscafiyo. waxma wada qabsan kara haddaan dadku ayna iscafiyin. dhibaataha waddankii hadda ka jirta dad iyo dad daran gaara leh madaxweynahood moodo inuu kalsoonidii ka dhowrsan tahay. aad moodo inaysan uusan u ahayn madaxweyne deegaanka oo dhan uusan wada ahayn oo si maaragtay qaarkood deegaamada aan tegi karinba oo la ii sheegay hadda raadka markuu soo baxay waxaa rabay dhulku inuu maro inuu mari waayo dhulka. diyaarad buu ku kormarayay meeshuu u socday markuu laabanaya diyaarad buu ku laabtay. xilligan adagna waa xilligii dadka hooyada iyo gabadha iyo neefka soo hadhay ba la garab istaagi lahaa iyo odayga waayeelka ah. madaxweynaha waxaan leenahay horta mudane jaaniskii adduunkaad heshay, jaaniskii nin rag uu ka faa'iidaysan lahaa baad heshay. deegaankeenii oo muddo 3 sano wax xabada aan ka soconin way dhammaan dadku nabad doonayaan way ku garab taagan yihiin oo la rabay inaad uga faa'iidayso dadkaagan isku wada dhaartay is wada xidhay iswada dilay yaa la rabay inaad uga faa'iidayso. ma aqaano way kaa haystaa arrintaas. waxaan u malaynayaa maamulkaagu 80% waa xeego ayagaa ku garab marinayaan. ayagaa dambiyadii galeen bay garanayaan. ayagaa kaa duwaya meelihii wanaagsanaa oo dhan. adiguna ma filayo inaad nin waayo arag ah tahay inaad tahay ma filayo. sababto tahay jaaniskan inagoo dhan baad inaga faa'iidan lahayn. dadkeena shacabka oo dhan baad uga faa'iidan lahayn. dadkeenaad yaad midnimo u samayn lahayn. dadkeena wuxuu u baahan yahay midnimo. maamulka deegaanka iyo ciidankiisa iyo deegaankeenii oo nabada iyo ururadiisii iyo wax allaa wixii dhiba ka dhacay wax inaga maqma wada raadsan lahayn. way kuwana ay ku garaaci lahayn dowladda Itoobiya la heshiiyeen adiguna aad deegaanka ka dhigi lahayd nabad isku duubnibaad keeni lahayd. cagsigeedii baad ka aragtay waddankii waxaa mataqaanaa ka batay qaad iyo sigaar iyo qori furan iyo mataqaanaa qabiil iyo qabalay yaa dadka ka batay. mudane waxaan leenahay marka dadka waxaan ku sheegaynaa inaad tahay madaxweynihii deegaanka ee u jaanis badnaa ka faa'iidayso. weliba dadka Soomaalida waxaan leeyahay deegaanka degan ha ugu dhaartaan Mustafa inuu madaxweynahoodii yahay ha ugu dhaartaan. waxaa kaloo insha Allah rabaa aan u sheego dadka Soomaalida ee deegaanka ururka ONLF dagaalka waday deegaanka Soomaalida wuxuu la dagaalamay dowladda Itoobiya la dagaalamay. maamulka deegaanka iyo ciidankiisuna waxay ahaayeen dadkii uu isticmaalayay iyaga oo ahaa la fagari iyaga la isku jabiyay oo iyaga ku jabinayay ee isaga dhigayay xabadooda iyo dhibkooda iyo isaga dhigayay oo ururka ONLF wuxuu qaatay inuu nabad qaato oo si nabada xor ah mataqaanaa uu ku dao xuquuqdiisii iyo xorriyadiisii iyo ka talinta dowladda Itoobiya la heshiiyeen inay ku raadsadaan si nabada. magaca ogaadeen la yiraahdo waxaa jira Soomaali fara badan oo xasaasiyad ka qabta ayaa jirta. magacan waa magacaas deegaanka loo yaqaan. ayaga oo ONLF baan u dhaqaaqa deegaanka mana aragno jabhad kale oo ka dhalatay. waxaan rabnaa marka inaad shacabka deegaanka oo dhan inaynan ku dhowranin wixii dhibay ka jira gobolka dhammaantiin intaad kacdaan oo odayaasha iyo aqoonyahanka iyo culimada iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka ay isu tagaan saaxiibul caqligu inay ka tashadaan danahooda. inagu baa deegaan ah Mustafa had aragtaan baa madaxweynahanagii ah. ciidanka aad ka sheeganaysaan new booliska baa ciidankeeni ah oo lafta arkaysiin ka sheeganaysaan baa ururkiini dagaalamahay. waxa weeye Itoobiya hadda wada halkii inta yartan nabad arkaysaan waa inta on lafta hadda xabada joojisay waa inta ururka xabada joojiyay yaa nabad deegaanka laga helay. hadday danahooda ay ka dhex arki waayaan waxay ballan qaadeen inay mataqaanaa ay xabad ridayaan. malaayiin markii hore 1994 dagaalka la geliyay durka loo baxayay dad yar oo kooban oo jahliyadna lahayn baa maanta way ka fiican yihiin. waxay leeyihiin malaayiin qof oo adduunka oo dhan ugu diyaarsan oo heli hooba diyaar la ah. oo ogtihiin in Itoobiya ay sankooda caana ka soo liseen oo Itoobiya dhufayska ay ku soo xaari jirtay oo gobolkeena uu sabaabur dhex mari jiray oo markii inta la sameeyay ay dowladda Itoobiya Ingiriisku isla sameeyaan ciidanka new booliska lacag loo sameeyay si inaga la isugu kanjabiyo si ayna u dhicin maanta mar labaad in la isugu kanjabiyo. waa inay waasiyadeenu iyo aqoonyahankeenu iyo ururada mucaaradka iyo dowladda deegaanka ay xal keenaan. haddii jiraan xinif iyo loolan u dhaxeeya dowladda deegaanka iyo ururada mucaaradka waa inay dad la helo marjac ah
oo odayaal dhaqameed iyo ugaasi iyo aqoonyaha. waxaa meesha ka maqan deegaanka soomaalida kaalintii aqoonyaha ka maqan, kaalintii ganacsatada ka maqan, kaalintii waxaa ka maqan waxgaradka ka maqan. ma lihin golo deegaan oo loo noqdo ma lihin. hadba waxaana maamulo un kabineedka iyo Mustafe oo kor laga keenay. waxaan rabaa inaan idin sheego inaad ogaataan Mustafe iyo 11 ama 12 ka horreeya isku mid yihiin. dowladda Itoobiya keensatay haddana iyadiin baa jirta. wax haddana Soomaalida u haysa ma jiro. dadka Soomaalida inay heshiiyaan oo ay wada hadlaan ay midnimo la yimaadaan iyo abaarahan kaga bixi karaan, colaadana kaga bixi karaan, ayaga dhexdoodana ay isugu tiri karaan oo wax ku wada qabsan karaan, sharaf iyo sumcadna ku yeelan karaan. hadday ayagu midoobaan dowladda Itoobiya ay ku qasban tahay waxay rabaan inay yeesho. laakiin haddii in kabineedka iyo Mustafa la safato, in ay ururada mucaaradka geeska la ka safato, in Soomaali magaca diidanba ay tahay oo deegaankii ama qabiil loola baxay hadday noqoto saddexdii dibi midna caddaa midna madoobaa midna mataqaanaa guduudnaa uu cunay libaax iyo dibigan madow maalinkii waa laynagu soo arkaya waa yool naga dilo suyudil. haddana wuxuu dibigan cad habeenkii waa la arkayaaba waa yoole aan iska dilo suyudil. dibigii guudnaa waa soo hadhay suu yiri hadda maada idilne markaan ogolaaday walaaladay inaad disho yaad idishay. marka idinna waxaad noqonaysaan Soomaalida deegaanka magaca diidan inaad idinna gaar layni dilo, gaar laydin isticmaalo. maaragtay ururadii iyo qoladii dhaqdhaqaaqa wadina gaar loo isticmaalo. kuwan kabineedka aan kuwa kaloo cusub la keensay berri marka danahooda lagu gaaro. si aan markaa waxaas looga baxdaan waa in loo noqdo dadka aqoonyahanka ee deegaanka la isugu yeero. dadka ganacsatada waa inay isu yimaadaan, waxgaradka deegaanka waa inay isu yimaadaan. waxaan codsanaynaa sida hadda aad tihiin waad ku baaba'aysaan, waana ku baaba'nay. dadkii waa la qabiileeyey, waa la tuuleeyey, oday kasta waa la bahdilay. ugaas macalin lama jiro, garaad macalin lama jiro, nin ganacsada oo macalin lama jiro. si aad macno u samaysaan midnimadiina ay ku xiran tahay. dhammaan waxaad idinku shacbiga ku midoodaan dowladda deegaankana waa idinku raacay, dowladda dhexana waa idinku raacaysa. marka waxaan codsanaynaa inaad arrintaas aad ka tashataan ood ka waayo aragtaan. waad ogtihiin gobollada say yihiin inaad Soomaalida iyo deegaanka iyo dadka dariskiina aad waxla noqotaan marna haddii lahaydmo aayihiinana aad heshaan. waxaad ku heli kartaan inaad midoodaan. haddii aan midoodin sida midaan sheega ma ahaanaysaan. intaas saasaan kusoo koobaya insha Allahu tacaala.